English markaa baranaysa any luqad, not just English, but I feel like any luqad aa baranaysa it's like a journey. So marka you need to enjoy that journey marka. So how did I learn luqada English-kayga? I will tell you guys everything you need to know. Shakhsiyan ahaan aan soo bartay. First waxaan ii sheego adduunyadan wax kasta waa la baran karaa. You can learn it. Anada sameyn karo adna waa sameyn kartaa. Why not? dadka badan waxay ku siinayaan advice badan bay ku siinayaan saan sama lagu dhahaa. Waxaad dhihi karteen maybe marka luqada baranaysa English-kayga ka waran waxay ku qortay YouTube-ka how to learn English. Wallahi may dadka badan marka luqada baranaysa waxay ku dhahayaan you know and filmaanta daawo waxay ku dhahayaan watch movies on Netflix or sometimes read book ama waxay ku dhahayaan you know listening waxyaalahaas dhan sameyn. But I'm qaabka u bartay wallahi it's far different from waxay dadkan dhahayaan. I feel like dadka they complicate things wallahi. I feel like runtii nolosha dhan ba complicate ka dhigaysaa. But intaan ii sheegin qaabka anu luqada English ugu barto xataa rabnaa inaan aragno dadka si u bartaan you know like waxaan sameynaa broad view aan sameynaa. Usually people waxay ku dhahaan muuqaalooyinka maartay you know Netflix waxyaalo ka daawa ku dhahaan filmaanta they will tell you to read books ama waxaa sameysaa you know take English courses qaado. Anadaan dhoo qaabkaas dhan uma baran. Would you guys trust me? Yeah, I think people can learn things in a fun way. So you know process you are enjoy garan kartid you know English markaa baranaysa any luqad, not just English, but I feel like any luqad aa baranaysa it's like a journey. So marka you need to enjoy that journey marka you know and marka I learned it in a fun way. Markaan dadka arko qaarkood ayagoo maartay book soo qaato you know 50 words qoro everyday new words ay baranayaan. That's a good way in maartay waa wacan tahay. But that is not the way to go about it. Runtan ii sheega you know macnaha erayadan maartay daa qortid oo faantid adana adoo qasa garaneen you know qaabka u isticmaalaysid iyo which jumladooyinka galinaysa. I don't know jumlado ma I don't know, but I mean like in sentence marka galinaysid if you don't know how to do it what's the point u qoraysaa you know waxna kama faa'iidayso waa qoraysaa. And next thing is waa iloobaysaa you know it's mind blowing marka arko dadka markay saa sameeyaan like don't do that please. Wallahi that's gonna waste your time. It's not effective. Si wacan u baraysa mana soo xasuusanaysa most of the times the things aa qortid. So I will recommend you guys waxaa samaysiin learn things in a fun way you know markasta markaa qorayso enjoy samaa you know inaa enjoy garinayso luqada haddana aana dareemin inaa baranaysid. So how I learned was basically inaa maaragtay you know I didn't even feel like ma dareemin markaa luqada baranayo. It just naturally comes to me. Adduunyan waa u fiirsada markaa maaragtay you know waxaad daba ordaysid and you're trying so hard inaa maaragtay waxaas heshid ama waxaas baratid wixii dhan oo xalkaysa kaa cararayo. So marka you need to just take things slowly. Iskaxaada you know deji, don't do too much, don't try too hard. Wixii waxa halkaas tartiib ayaga naturally ku imaanayo. Aan waxaan ku bartay luqada English-ka aan dadka la hadlo. How did I do it? Yes, I was introvert. Dadka lama sheegaysan jiray baan ka baxo you know isdhexgalka ma aqoonin. But I had to push myself out in a competitive ka baxo or wax something different sameeyo. All you need for luqada English-ka markaa baranayso waxa waa just a phone, a stable khad. That's it. Not need wadan English looga hadlina joogtid just for you to learn English. You know that's straight up English luqada meel kasta looga hadlaa. It's broad language. You can learn it. So ana person waxaan sameyn jiray was that dadka la sheekaysan jiray you know xaalkooda ka waraysan jiray. Waqtiga hadda ku jirno ee waqtiga dadka bari warta wallahi anaga ka farso badan like there's so many things you can do online you know xataa don't YouTube ku qoran on how to learn waxaa sameysaa abab waxaa jira dadka lagala hadlo. There's so many abab. I will probably link it and in the description kan you so dhiga linkaha you know appka soo degsada you know talk to people. You can adjust you know wadanka joogto waa ka bedeli kartaa VPN baa isticmaali kartaa dadka la sheekayso luqada saas ku barto. Wallahi ana genuinely it was fun stupid way dadka la sheekaysana mana dareemin inaa luqada baranayo. La sheekaysan jiray dadka America jooga you know waa iska garajay because lahjadaas xiiseynaya hadday xiiseynaysa lahjada you know British accent UK ku dhusanaysa. Same with Australian accent. You can choose Australian accent. Marka appka soo degsatid oh my god there's so many people dad badan aa ka buuxo sheekaysanaysa. Marka group waxaa tagtaa yareer saddex qol lagu jiro tag qolkaa gal ka hadal ask people how are you and stuff like that you know dadka la sheekayso warayso dhigayso. And also thing is listen to the way ay u hadlayaan ayagana you know because ayaga hadda kama hadlayaan what's the weather like today. It's not boring, trust me guys. Waxyaalo wacan ka hadlaa dad update you know marka it's a fun way. You can ask them just how you doing you know and sometimes waxa ku jiro you know debates. I love debates. Ana meesha waxa u gali jiray debates ka u gali jiray you know waa marka maartay topic la kana meesha oo hadana maartay qof walba fariidsa ka sheeganayo. I just but sheekaduna dhex gali jiray dadka marka dhageysto
eryo cusub ka arko, oh my god, eryadaas wax arkay aan next day isticmaalayo oo qof kale u isticmaalayo 15 minutes a day isku soo gala, waan iska xiisayn dadkaan la hadlo because every day qof cusub aan baranaya, it's not same one. qofka dad kalena kaama daarayaan because kuma yaqaanaan. You can fake profile samayso soo dhexgal meeshaas, nobody will know you aan ku dhahay, qof weji kaala mala. Even xataa most of the people are really nice aan meesha aan ku bartay. wala waxaa dad waxaa istaa, oh my god, friends aa ka samey, asxaabna ka samey. That's another way to connect with other people. asxaabo uma galan laakiin meeshaas ani I went in there just to inaan luqada ku barto, but I didn't even feel like it. wallahi ma dareemayn waxaa is arka anoo xagga ka bartay. I feel like the only reason xagga u galaayo waxay ahaydba because interested baan ku ahaa inuu dadka la sheekaysto. waayo inkastoo hadda aan wadanka aan joogo markaa luqada maartay aan meeshan afkaan isticmaalay, waxaan joogo wadan oo looga hadlan af English-ka, so it wasn't helping. marka waxaan sameeyay wadamooyin kale wallahi, marka anytime la hadlo dadka any city aan kala bartay. guys, dadka America saa ula sheekaysanayay warka ugu soo gurayay, oh my days, every waxa u maleeyaa state waan kala bartay. dadku ii sheegayaan magaalada guryaha raqiiska adduunyan weydiiyaa, like just a lot of things. That's a good way to engage with walaal dadka oo connection u sameyn kartana as well. inkastoo aan hadda connection iyo waxaas dhanka ma lahayn, it's just I was talking to them, mana dareemin inaan waqti gelinay waxaas. So please walaa waxaa samaysiin, learn things in a fun way. buugada soo qaadso maartay content array qortid and you just know the meaning, laakiin haddana isticmaali karin, you cannot use it in a sentence. That is just useless and pointless. waa wali wana mida kalena, you're gonna drain yourself. Please do not drain yourself wallahi. And it's so mind blown markaan arko dad maartay hablo oo saa naftooda ku sameynayo oo waqti gelinayo and then they waka xiisa dhacayaan wixii dhan. if you treat English luqadeeda maartay waa journey. hadda even ani English-ka maartay anoo aqaano maalin kasta eryo cusub arkaa because English-ku maartay it's broad, it's like Arabiga, waxyaalo cusub arkaysaa, eryo cusub. so anigu maartay even now anoo hadda maartay English aqaan wax arka eryo cusub and I use it marka buugaagta akhriyo. hadda right now buugaagta waxaan akhriyaa because I'm interested in the books. ma akhrinayo luqadan ku bartay, interesting baa ku ahay. marka eryo cusub arko I use it, sentence baan ku isticmaalaa. kan kaleta ku dhahay online course qaado, trust me, bullshit waayo waxaas oo dhan. I feel like if you're able inaad maaragtay ku sheekeyn kartid dadka, xaaladooda ka wareysan kartid, markaa qofka la sheekeysatid, there's so many things, waxyaalo dhan baa ka fargaranaysa. waxaa ka fargaranaysa horta lahjadooda fahmaysaa, eryaasha isticmaalayaan fiirin kartaa. you can use that too. another thing is jawaab waa bixin kartaa. dad waxay dhahaan, oh my god, anu maaragtay English qoraalkiisa waan aqaanaa laakiin ma hadli kari, I cannot. what's the point? qoraalka dhan maxaa ka baranaysa haddaan ku hadli karin? I feel like English waxa waa necessary inaad ku hadashid. first you should prioritize inaad ku hadashid. markaa ku hadashid it's easy for you inaad qortid, the rest thing way imaanayaan. wax markaa baranaysidna do not force it. wixii maaragtay khasab laguma helo iyo degdeg iyo waxaan dhan iyo no, don't do that. I feel like haddaa English-ka you enjoy it, a journey yar gashid, maalin yarba wax yar waqti yar gelisid, oona isdareemsin inaad baranaysid, you're gonna enjoy it and things will come naturally to you. qoraalkii adoo qoraysid dadka la chatting garaa, qoraalka markaa qoraysid dadka la chatting garaa, waxaa qorin maartay sentence and do not try to memorize gaysid. your brain will not learn in that way. trust me, waxyaalaha badan oo maskaxdaana ku khasabno, we don't retain it. maskaxdaana ka baxaysaa. ku hadashid dadka oo conversation la lahaatid, you will learn it. waana fahmaa si loo qorso. it will be easy for you. trust me guys, it will be easy for you. please guys, it's okay. waa caadi inaad khalad samaysid. haddaa ereysa khalad dhahday, it's okay. ereygaas markaa khaladkiisa aa fahantid, you're gonna learn from it. next time waxaa saysaa, okay, this is what I need to say. haddaana khalad sameynin, you're not gonna learn anything. Mrs. Perfect ama Mr. Perfect ma tihid. ilaahay baa maqaldama ah. so allow yourself inaad khalad samaysid. ereygaasna you can learn it. trust me, you can do it. English waa baran kartaa, it's not hard. anu waa bartay intaasoo dada ku hadasho English waa baran kartaa. English waa ku anfacaya, learn it, it's good. English-ka barashadiisana marna kuma khasaaraysid. opportunities, another waxa waa fursad oo shaqo ku heli kartid, good connections ku sameyn kartid. cilmi dhan oo kuusoo kordhinaya. English-ka aad iyo aad ugu muhiim tahay maalmahan wallahi. I feel like you will waxyaalo badan baa ka faa'iideysaa. ugu dambeysana waxaa waaye nafsiinkaaga adoo isgaranaysaa, wixii kuu shaqeynaya waa garanaysaa. so if you know si qaab u baran karto wax, follow that. anu shaqsiinkayga waxaan ogahay I cannot learn things in a boring way. even now xataa markaa wax baranayo, for instance hadda markaa baranayo anatomy and physiology, I learn things in a fun way. uma barto maskaxda wax kuma khasbo. so find your way. some people waxay dhahaan anaka music markaa dhegeysanayno, I learn English that way because I catch words from it. fair play to you wallahi. I mean haddaa saa ku baranaysid saas ku baro. same thing with haddaa maaragtay wax aqris ku baratid ku baro. but all I'm saying is ha noqonin qofka maaragtay oo naftiisa dhibaayo oo maaragtay
that is just trying so hard. Do not try so hard hada ereyadana oo qorqoraysin maalin kasta iska joojiya. I personally hada ay weydiinaysin waay dadkan qabto ku dhahayo ereyaasha qor maalintii 30 daqiiqo soo 2 saacadood furso qor. Maybe waxa laga yaabaa inaad baranaysid but 99% wixii la maskaxdaada ka baxayaan, you know, because English luqadda markaa baranaysid you need to engage, you need to keep it active. Marka the best way you can do it is by asking questions. Dadka inaad su'aalo weydiisid, la sheekaysid, hadal kasoo gudbid, adigu dhageysatid. The best advice aan siin karo waxaa waaye be observant, you know. Observant macnaheedu waxaa laga wadaa inaa maaragtay, you know, pay attention ku samaysid markaad ka hadlayaan, qaabka u hadlayaan, si wax u dhahayaan, you know. Marka kadib adigana maaragtay maskaxdaada absorb garaynaysaa adoo xasarkaysa break ma qof kale kula hadlaysid ereyada qof kale dhahay isticmaalaysid, you know. Waxa arki doonta luqadda oo naturally waa maaragtay ku hadli doonta. Trust me, it comes from me. Anoo maaragtay luqadda idhibi jirtay bergoorteed sababta idhibi jirtayna waxa waaye xishoodka, you know, ka xishoon inaa maaragtay khalad samaysid, as I said before. Yeah, inshallah waa baran doontiin. After you watch this video waxaa samaysaa description-kayga tag hoos waxaan iisoo dhigayaa appka isticmaalay oo, you know, dadka la sheekaystay. Obviously wuxuu kaa baahnaanayaa inaa maaragtay ID-gaaga tusid, age-kaaga, you know. Marka appka dhex gashid wax ku dhahay sawir iska qaad, but sawirkaasna maaragtay just for security reasons waaye. Hadhow ugu dambeyn profile-ka markaa gashid you can change the sawirkaad iska saaran kartaa qofka taleeyaha ama sawir oo Pinterest kusoo qaatay iska saaro haddaa rabin in lagu arko. Haddii kalete caadi ahaan isku saaran kartaa, you know, waxyaalaha jecesha ku qorqora because people connect that way, you know. Waxyaalaha jecesha ku qor. If you don't want to leave it, you know, caadi live iska dhex gal. Waa live waaye, kaamirada lama furanayo. You can close the camera if you want, you can open. I prefer an iska xiraan waaye cidna maaragtay dadka badan oo ma furtan kaamirada meeshaas. So caadi loo sheekaystaa, you don't have to put your real name. Dadka la sheekayso, it's a fun way to engage with the language, you know. Damiin badan baa ku jira, not just English. It can be Arabic, it can be waxyaalo badan, luqooyin badan ka baran kartaa, Spain, everything, you know, Sweden, all these things. There's so many countries oo ku dhex jiro that you can choose from there. Appka soo degso, you know, dhexgal ka sheekay dadka la sheekayso. Maalin kastana qof cusub baranaysa, so it's fun. Ma ka xiisaynaysid. Ana at least kama xiisaynayn. Why every day wax xiisayn qof cusub la hadlo, you know, qof wax ka barto. Anigana maaragtay I wasn't treating it as ina maaragtay luqad barash ahaan uma wataagin ba meesha waxa u tagay dadka la sheekaysto oo waxaas arkaan wax ka faa'iiday, you know, dadkan ka bartay, you know, hadana dadka u fakarayaan xataa as well, which is wallahi I don't know. Ana waan jecel kan maaragtay qaabka u hadlaan iyo qaabka u sheekan iyo fikradooyinka ana maaragtay ka dhageysto, you know. But you have no excuse. Appkan soo degso, you know, engage with it. Inshallah you will learn it, and trust me, you can do it. Ana daas sameey adna sameyn kartaa. It's not hard. You're just waa bilaabaysaa, you know. Markaa bilaabaysid marka waxaad dareemaysaa inay ku adag tahay, laakiin ma adka. Everything is doable. Waa baran kartaa, any luqad waa baran kartaa. It's just the beginning, and you have to be patient. Inaad u sabirtid waqtina maaragtay, you know, ana maaragtay ku fakarin inaad galin, you know. Don't stress over it. Although wax arkaysaa natural ku imaanayso. Ugu dambeyn hal maalin waxaad sanaa, please subscribe to my YouTube channel. Inshallah muuqaalin noocan waan isoo badinayaa oo wax ka faa'iideysan inshallah. And I hope this video helps you guys. Yeah. And trust yourself, Adi. Wax kasta oo markaa bilaabayso waa inaad kalsooni lahaatid naftaada. You need to trust yourself that you can do it, and inshallah you will.